dhalinyaradii oo laga adkaan lahayaa shabaabkii oo bal soo durkaya oo dadka qaar ay qorayaan waraaqada waaweyn 2027 adduunku wuxuu la sheekaysan doonaa xarakada shabaab دي حل gaari waayo oo imika la sheegaya in dawladda Qatar la siiyay mashruucaas inay bilowdo wada hadalkaas waxaa ka jawaabay anuu aan baaray ماذا بعد الاعتراف اعترافku hadduu yimaado Somaliland ma usoo sidaan su'aasha ana isweydiinay waxa su'aasha iga soo baxay Somaliland waxay qaadi doontaa juqraafiga dhulka in lagu ictiraafo ay tahay dhulkaasi waa maxay waa meeshii Ingiriisku uu ka kacay musabixi 100 jeer buu ku ceshay Somaliland xuduudeedu waa xuduudii Ingiriisku iyo Talyaanigu ay ku kala kaceen xuduud kala male cirana saas uu yidhi qof kastii oo reer Somaliland oo u doodaya in Somaliland la ictiraafana taas u haystaa taasi soo mid maaha midda labaad ee garabtaa loo maxay waxaa garabtaa la gobolkii go'ay khaatamo ee isaguna maanta u fadhiya doorasho maanta doorasho u fadhiya oo ay u bixisay dawladda dhexe ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gobolada waqooyi bari kelmadaasina waxay sidataa qumbulad qarxaysa magaca waqooyi bari kaliya waqooyi bari oo kaliya waa magacii Ingiriisku u yaqaanay marka waqooyi bari maxaa ka soo horjeeda waqooyi galbeedna waa wixii ida ka soo xiga marka waxaa loo bixiyay gobolka waqooyi bari doorashadiina baarlamankiina way dhamaatay waxaa la dooranaya imika maxay waa madaxweynaha oo ilaa 4 ay u rashaxan yihiin madaxweynaha la dooranayo baarlamanka la doortay ee maxalliga ah waxay yihiin kuwa rumaysan Soomaali weyn dhinaca kaleeto Hamza iyo Xasan Sheekh waxay ku jiraan dagaal labaysan waxay kula jiraan Puntland oo gobol ay ka soo gooyeen waxa kana ku dareen iyo Somaliland fi aani waahid marka Puntland way ku cadaadinayaan si ay u yareeyaan awoodeeda Somaliland oo laga gobolka ka soo go'ay idan maxaa dhacay marka dawladda Somaliland markay tiraahdo ee la ictiraafo dhulkan aniga lahaa kuwa dhulka la ee degan waxay oranayaan waa anagu waxaan Soomaali marka muxuu noqonaysaa mawduucaasi muxuu noqon doonaa gobolkaas loo bixiyay waqooyi bari muxuu noqon doonaa qumbula